السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز رمانتي وسلامتين سفارة دينا وسيرة دي هوري حلبانة دي هوري كمان أرياشة ما يركينا نظر تباح مالين رمانتي محلينا أبي ونفس runtii waa caawa waa habeen farxad leh oo qofkii ugu horeeyo maayra oo la dan loogu yimaado oo sidaa mataqaan maanta caawa waxaa fadhida labeentii oo ahay London waa fadhidaa oo cid kasta ka kooban oo dhiigka reehel ma jirto waa labeentii oo ahay London aad u nasiib baan tahay oo ahay nadarta wax maalin runtii aad waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada soo qabanqaabisay arrintan waxaan leenahay جسنا غير إلى الأجرسيو وحكى الله ما شاء الله يقفل المرأة نظر وحكى لنا كسر له لندن والمجعلية هاي قفنا جعلنا ومتقاليات هاي لما تينا وحلينا وما سنتي أنت كسر غير كشي وهو رأيه سلكينا طيب لما وسيرة هورا لما أنتي بوا سلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراء xiriiriyo oo qof kasta mansabka iyo magaca oo meesha ku fadhiyo oo ku soo dhaweeyay aniguna asigaan la qabaa xafladan waxay ku saabsan tahay soo dhaweyn maayarada magaalada beledweyne Marwo Nadar Tabaax maalin gareed meesha waxaa fadhiya odayaal badan oo xildhibaano soo maray haddana weli aan u malaynayaa inay candidate yihiin oo qadka ku jiraan marka dhammaan soo dhawaadaan leeyahay waxaa kale oo meesha fadhiya safiirkii maaragtay Soomaaliya u fadhiyey Masar Dayib isagana soo dhawaadaan leeyahay walaalayaal anigu waxaan ku hadlayaa magaca maaragtay guddiga qabanqaabada ragga dhalinyarada oo arrintan soo qabanqaabiya ayagana waa mahadsan yihiin inta ka soo qayb gashay oo ay jiibtayna aaday u mahadsan yihiin marka waxaan leeyahay maayar Nadar kusoo dhawow London guud ahaan UK gaar ahaan London intaas ayaan ku leeyahay dhammaan waana wada mahadsantihiin وبالله التوفيق لنا. haddana waxaan kusoo dhaweynaynaa cali durf waxaan ugu yeerayaa oo ex wasiirka sportiga South West soo dhow. maalmahan waxaa jira halhays reer galmudug ay keeneen oo la yiraahdo madaxana furan marka caawa madaxana furan gudoomiye soo dhawaaw aniga waxaan nasiib u helay markaa Soomaaliya ku laabtay 2012 magaaladii ugu horeysay ee xamarka dambeysay aan tagay beledweyne waxaan soo joogay ilaa 9 maalmood waqtigan tagay Cabdifataax Afrax ayaa wuxuu ka ahaa gudoomiyaha gobolka marka magaalo aad u qurux badan qeyraysan sharaf leh magac leh dad badan oo Soomaaliyeed oo taariikh leh ay ka yimaadeen ayay horta Nadar waxay u yeelatay iyadoo gabar ay inay gudoomiye kan ku tahay marka Nadar maamul goboleedyada qaarkood madaxweynaha jooga ka khatarsan waxaa tahay gudoomiye degmada beledweyne at the same time aniga shakhsiyan waxaan kugu duceynayaa ilaahay wuxuu ka fududeeyo because beledweyne waayihii dambe waxay ku jirtaa magaalooyinka Soomaaliya siyaasad ahaan aad u cakiran oo kala qaybsanaan badan iyo kala fikir duwanaan badan ay jirto waxaa kale oo beledweyne maalmihii dambe aad ugu soo laalaabtay arrin magaalada ay ka kabsan weyso oo ah biyo baxda fatahaadaha tirada badan oo magaalada dhibaato badan u geysay iyadana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu culayskaas ilaahay ka qaado oo ilaahay meel uga furo aniga dadka aaminsan ma iyo beledweyne inay mucaawino u baahan tahay waa magaalo qani ah
waxaan aaminsanahay dadka reer beledweyne dadkii ku dhashay magaalada dadkii u dhashay haddii magaaladaas la isugu tago oo investment la geliyo inay Soomaaliya oo dhan ka fikirto marka gudoomiye soo dhawaaw haddaan beledweyne sharaxan meeshaan uma soo koobi karo adigana waxaa tahay gabadha keliya ee 96 degmo ee Soomaaliyeed gabadha keliya ee gudoomiye ka ah marka waxaad leedahay mudnaan qaasa waxaad kaloo leedahay ku dayasho annaga haddii aan nahay beesha curadka hawiye ee mursade annagu beledweyne iyo dadka dego waxay noogu isan yihiin anaga inay dad walaalaheena yihiin macnaha mar kasta ay garab noo yihiin haddii ceel buur dhib ka dhaco meesha ugu horeysaan gurmad ka helno waa eedii beledweyne haddeertaan markii ciidanka la geynaayay dadkiina soo dhoweeyey meeshii baabuurteena ka degtay meeshii ciidanka ka degay meeshiina la dejiyey ulmacbis leeyahay marka annaga qof kasta oo siyaasi ah oo mursada ah anuu afkiis ku hadlahay nadar waa soo dhaweynaynaa qof kasta oo xawaadlana waa soo dhaweynaynaa aada umaasantiin walaalaheena tihiin intaa noo tihiin waa idin jecelnahay soo dhawaada nadar adigana soo dhawaada waxaan dareemayaa caawa walaashay nadar oo aan in muddo soo wada shaqeyn caawa halkaan aan ku wada cashayn ani farxad gooni ii tahay marka taas si gooni ayaan ugu ammaanaya walaashay soo dhawaayaan leeyahay Maryam walaashay nadar waxaan xasuustaa nadar dhowr shaqo nadar waxaa qiimeyn kara qofkii shaqo la wadaago beledweyne tegey aniga 2 jeer ayaan howl ballaaran u tegay beledweyne maraan gurmad mana qaraabanahay ay gaadiid gurmada u wadeen oo lacagan $5 milyan ka yareen lagu soo xawil anoo wasiira ayaa waxaa la yidhahdaa reer hiraani anagu de reerkaada wasiir oo qaad raashinka matabaan anoo joogaan la wareegay 18 baabuur tareen magaaladii beledweyne aan tegey dadkii oo dhan bannaankay joogaan guryaha ugu qalalan ugu nadiifsan oo raashin la dhigi karo guriga nadara ugu horeeya wallahi inaan cidna weydiin baabuurta waxaan ku bisaan u wada qaar ka mid a xaggaa la geeyey qaarna waxaan geeyey xaafidiyaan u qiimay waxaan kaloo haddana markii la ii yimid xafiiskii ra-iisul wasaaraha nin saaxiibkeeda oo asagana 2 diyaaradoo adeega wada walaashay nadar ayadoo gurigeedii ka maqan doctorka janeer raxma allah siyaa joogay iyo maayarkii hore duqii hore gobolka barsaabkii hore deeqow abukar deeq عمر داقو توركي بعديو 3 باور تراغا iyo gurigi raashikii aan waday alaabtii saambaagidii waa qaadi waayeen abaayna safar gaaban nooga maqneed ilaahay waxaana ka soo meel kale ma haysan wax ku qasbanaana gurigeeni iyo waardii u joogay shaqaaleena alaabtan inta ka imaanay lagu simaayada qoladii ra'iisul wasaaraha warqadii aan u saxay ka dhamaadaan ku meel nadiif alaabtan taala waxaan ka daawaday telefishinka gurmadkii ugu horeeyay biyaha lagu xiraay saambaagidii shaqadeeda ku qabsatay marka nadar qofkii shaqo la wadaaga ogaan kara waa qof aad u shaqo badan u dadaal badan xil kastana u taagan shaqada iyo howlaha gobolka iyo samafalka marka waxaan leeyahay si gooniya iyo casumaadaheeda iyo kulamadeedu halkan kale uma soo koobi kareen nadar waxaan leenahay reer hiiraan iyo reer shabeelle ha u istaagaan waana salaamintiin dhammaan ambaasadorka xildhibaanadii hore iyo walaalaheen dhalinyarada soo aabujisay xafladan caawa ay ku soo dhaweynayaan gabadha walaasheena ee ah maayarka sida lagu sheegay ugu horreeyay aniga shakhsiyan cabdirashiid ahaan hiiraan waxay ugu leedahay taariikh dhow oo runtii aan uga qayb galay halganka dadka reer hiiraan ugu jiraan jiritaankooda gaar ahaan magaalada beledweyne oo ka mid ahayd 8 magaalo oo Soomaaliya 1960kii xorriyadda lagu qaatay sida la sheegayna ay ka yimaadeen dad fara badan oo magac ku leh oo maamuus ku ahaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed aniga waxaa beledweyne iigu horreysay waagii aan yarayno anigu gaalkacyaan ka imid oo jidkii la mari jiray kasiko warkaas waqti yar baan laakiin muddo dheer maadaama aan ka soo maqnaa Soomaaliya waxaa beledweyne iigu horreysay waqtigii UNISOM ay tagtay oo ciidamadii Jarmalku ay tageen ayaan waxaan ka mid ahaa maadaama aan barnaamijka taageersanin dadka iyagii dibadda joogay oo Ibrahim Xaabay ka mid ahaa oo ah in Soomaaliya la taageero oo aan la bandhigayn Soomaaliya ilaahayna markaa uu u soo diray nin wanaagsan oo loo jiray Butrus qaaday inuu United Nations ka noqdo Secretary General ama xogayaha guud ee Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa oo aan ugu tagnay New York ka dhaadhicinay 29kii in aan Soomaaliya sida lagu bandhigayn oo member ka ah Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa ee loo soo diro ciidan nabadda kaliya ma aha taageera
sidii dibudhis iyo reconstruction sidii dalalkii burburay adduunka oo Jarmal ka mid ahaa Japan ka mid ahaa halkaa laga soo celiyo marka anagu waxaa lagu guulaystay in ciidankaas yimaado ciidamadii marka dowlad burburtay oo ahaa Jarmal oo 10 sano ka bacdi noqotay waddanka saddexaad adduunka ugu dhaqaalaha badan waddankoodina dhistay ayay nasiib hiiraan u heshay in halkaa la geeyo talooyinkan siinayna waxaa ka mid ahaa markaan tagnay in reconstructionka hadday xag caafimaad tahay hadday iskuulaad tahay hadday maamul tahay in laga shaqeeyo nasiib darro barnaamijkeedu waa feelgaroobay waa la soconaa dib ugu noqon mayno laakiin waagaas aniga igu horreysay waxaa kaloo igu xigtay oo Ibrahim oo Xabeebo oo xildhibaan ahaa wada shaqayn jirnayna dowladdii u horreysay ee lagu soo dhisay Imbakati iyo Eldoret kolkii la doortay madaxweynihii markaa joogay Cabdullaahi Yuusuf meelihii ugu horreeyay ee Soomaaliya uu tago inay baldi weyn ahayd marka wafdigii baa la socday halkaa tegey taana waxaa keenaysay xiriir ka hortow markii Soomaaliya ay xirmeen sidaa la socotaan dekedihii dhulka la yidhaahdo Puntland markii la asaasay beledweyne ilaa Boosaaso isku xirmay marka wax soo saarka beledweyne iyo gobolladaas oo dhan jidka laamiga ayay maraa Boosaaso ka dhoofaan qaar Somaliland bay tagaan marka dadka Soomaalidu iyadoo dalkii dowladdu iska jirin ayaa la isku xirnaa waxaa marka si gaar ah u xusuustaa bishii August 1999 ayaa markii Puntland ay halkan jirtay waxaa ka soo galay wafdi la hadlo oo wato Allah u naxariistay Umar Xaaji Aadan oo ka koobnaa Maxamed Xabeeb oo hadeer la yiraahdo oo asaguna dhintay Allah u naxariistay Hussein Bood Allah u naxariistay raggaas oo dhan ku shiray beledweyne oo sameeyay golol la oran jiray Goos ama golaha wadatashiga Soomaaliyeed ayaa waxay wadatashi u yimaadeen Puntland oo hal sano jirta waxaana lagu heshiiyey in 8 gobol oo Soomaaliya 60kii xorriyadda ka qaadatay haddii la waayay dib u heshiisiin guud oo Soomaaliya ka dhacda in hoos ka soo dhis gobol la maamul laga soo dhiso 8 gobol dabeedna la isku keeno oo markaas 8 gobol ka bacdi ay abuurto dowlad Soomaaliyeed oo ku dhisan nidaamka United Kingdom oo kale ku dhisan dalkan joogno oo ah nidaamka la yiraahdo devolution power xukunka in la farxiyo oo gobolada la dhigo oo degsoontiin dowladdii Labour waxay abuurtay in gobolada Scotland, Wales iyo Northern Ireland iyo England oo gobollo badan ah laga abuuro maamulo maantadan aan ku jirno ra'iisul wasaaraha cusub oo doortay Ingiriiska wuxuu maanta la kulmay 11 gobol oo England kaliya waxaan u sheegay in iyagoo England ka tirsan haddana maamulka hoos loo soo dejiyo oo maamulo ay samaystaan oo ay ku soo xirmaan dowladda dhexe ee London waa ogsoonahay maanta inay leedahay maamul kale oo la yiraahdo maamulka uu Saadiq Khan madaxda ka yahay oo adag waxaana jecelahay maayarka oo maanta noo yimid hadday suuragal tahay maadaama aanu dooranay in ay la kulanto maayarka magaalada London oo waxyaabo badan beledweyne iyo gobollada kale Soomaaliya ku taageeri kara marka hadalkayga ma rabo inaan meelo badan waxa kaloo aniga Cabdirashiid ahaan maadaama Soomaaliya muddo dheer ku shaqaynayay aan tagnay waddanka Kuwait waxaa jira wax la yiraahdo Kuwait Fund baa jira oo dhaqaale badan la maayo barnaamijka waxaa ka faa'iideystay Somaliland iyo Puntland airport ka dhisteen Garowe Airport Hargeysa Airport jaamacadda Baran dad reer beledweyne oo halkan jooga iyo kuwa Soomaaliya jooga waxaan ku iri war isku dabarinta barnaamijka dowladaha Soomaaliya ka dhisa ayaa la mariyaa barnaamijka laakiin barnaamijku waa inuu ka bilaabmaa beledweyne maalin walba fatahaad baan lacag halkan ka aruurinaa beledweyne wabiga uu siduu dhex maro waa sida London Thames River uu dhex maro waxay noqon kartaa xataa magaalo tourismka loo tago laakiin dadkeedu intay is-abaabulaan baa la rabaa barnaamij sax ah inta la samayso taageero loo raadiyo biyahan maalin walba fatahaada dadkii qaxinaya loo helo taageero wixiina waa diyaar laakiin waxay u baahan tahay dad isku duuban oo arrintaa ka shaqeeya anigana waxaan diyaar u ahay sidii waa aan mucaarad ahayn oo raadiya ka hadli jiray waxaan saari jiray habeen walba raadiyaha beledweyne Allah
ودي كلنا بشح والله إلي حلقي maantay waxaa fursad ii tahay oo ragga ii sheegay galabta oo safiir dayib ka mid yahay iyo xildhibaan cabdiraxmaan ayaa caawa waxay igu yidhahdeen xaflad reer badweynaha baa jirta waxaan ku idhi anigu kama maqnaan jirin meelaha badweynaha marka waa ku faraxsanahay laakiin ismaatinkeeda waa inay ka dhalataa iyo joogitaanka walaasheen maayarka ee badweyne action plan oo magaalada badweyne ay noqonayso halbowlaha waa meesha Soomaaliya xudunteeda magnet soo jiita koonfurta xiriir bayna la leeyihiin Soomaalida oo dhan wax qabadka wax soo saarka ka yimaada koonfur Soomaaliya maadaama jidadka shabaab iyo bala fariisteen jidka laamiga ilaahina siiyay reer bari nimanka anagu reer bari midii mudug baan nahay alaabta ka timaada ayaa halkaa timaada dekadna waa u dhisnay yiraahdo dekada garaac reer badweyne oo dhan baa Soomaaliya laakiin dekada waxay leedahay heeb dheer bay leedahay heebtaa waxaa la rabaa laftigeeda in la dhiso oo laga dhiso dekado oo Soomaaliyeed waliba dekada garaaca dowladda ma dhisin dadka reer Puntland ee dibadaha jooga lacag isku daray 80 milyan oo dollar ayaga taagay marka badweyne iyo dadkiisu maanta wax weyn baa loo qaban karaa wadanka nadoo badweyne kaliya gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle ay ka mid yihiin waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano Allah ha idin barakeeyo kulligeen farxadii ah inaan walaashay waxaan madarta wax ku soo dhaweeyo inkastoo 9 sano u dambeeyay aan Soomaali isla ahayn really dadka Soomaaliya ka soo shaqeeyay reer London ahaa laakiin last 9 years aan meeshaas ma ka shaqeynayay really midnimada faa'iidada ay u leedahay qof wax yaqaan inuu maamulka qabsado waxa garan kara qofkii ku dhex jira hay'adaha dhaqaalaha runtii wadanka gobolada gobol kasta intuu ka maamul fiican yahay dhaqaalaha waxa malaysaa in looga eexan jiray xamiyada hadda taana dhafaqtu waxa ah gobolka isku duuban uu ka dhaqaale badan yahay marka dhaqaalaha la qaybsanayo gobolka aan xaalada isku duubnaa marka maamulka nadar iyo gobolka Hiiraan iyo Hirshabeelle waxaan rajaynaynaa inay isku duubnaadaan si ay dhaqaalahooda mar walba maartay ugu kaco waxaa farxadii ah mar labaad masaxaad wixii hadal lahaa inkastoo lagu yiri haddana waxaan reer farxadii anigoo reer Soomaali isla ah inaan haddana ku soo dhaweeyo London waan isla noqon doonaa marka waan soo dhaweeyna brother aad mahadsan إلهي سبحانه وتعالى مهضر وسبحانه الله سبحانه وتعالى أنا وعافنا ضمن هذا المسكوك كناي أنت أستدق وحنا رأينا إنه هذا العيد ما ولا الله شرفت له سيدا يدق هرب شجعان غفر بو مصر فبيو أيام مارتي كلها سودو أنت أستدق حفلة ليل أنا ما نظر عمور يصبت اللي تجمعيه ضبط بدر وحنا عايزين قرارات سهلة لكن نظر هدي لسه بين مليون وأول معنا وقت هو وقتنا خصوصا قاولنا سمقل أو قاولنا مجال البلدوينة وقت جي سمقل كان عندها لو قرايو مجال البلدوينة وقت أصلا سمقل قوة الشقينين مرك وقف ملوين إليه له ساس أوجد أمارة عاو عن ويمد نظر وحكوا لي إن شاء الله ويجعل لي لندن إلى جوتبا واحد وجعل لي هنا معها وحكلا وسمفلك واحد وجعل لي هو ضدك سمفلك هو كدوي ضدك كلا marka jacaylka lagu qabo waa xagga samafalka hadina sii wad ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha ku fududeeyo allahna kula garab galo waxaan ku leenahay soo dhawow insha Allah وانا محسنت السلام عليكم ورحمه الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سفارة وزولك اللي بانada wasiirada sarqaadiid si gooni ah sida noo xusaa inay dadka qaadka dacwaa ka mid ahayd walaalayaal nin la yiraahdo waxaa dhihi jiray magaalo hebeleyba nabad baa marka London ay nabad baa aniga dadkayga waxaan joogaa London laba habeenaan joogaa laakiin sababta aan u ogaa waxaa waaye maayarada ayaa la jeclayga haystaan maayarada aan la tago labada maalmood ay joogtay xafladda loo dhigay ayaa la joogay anoo miday sidaa daraaddeed waxaan ku dhamaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin labaantii reer UK ama London oo intii soo urustay iyadoo qabiil lahayn oo Soomaaliya noo soo dhaweysay maayaradeenna nadar maantibaax aad u mahadsantihiin أنا عاوز فرحات قولي إنت والسلام عليكم. أنا ما دام سبورتس أو لقى حظي أو نظر تاريخ من الأخبار لقى حظي
laakiin anigii nadar tan dadka isaga dhowray nadar 1991 waxay dadka barnaamij lagu bilaabay isboortiga nala dhisto ayadoo sportis beledweyne oo garoonka lama galay ka qodan yahay god laga qodo dhibcaanta guryaha lagu dhisto barnaamij nala jirtay gurigeeda ku bedelayeen haddii noqoto dhaqaalaha isboortiga ilaa hadda waxay noo wadaa mashruuc lagu dhisaayo garoonka laqayo oo lacag dhow 20 wado akoon ugu jirto abaabulka nala wadaa marka nadar weligeed nagama harin waa walaasheed isboortiga uu ku tiirsan yahay xagga dhaqaalaha xagga habeenkii nala dhafarto guryaha markaan ku jirno dhaqaale nala aruurso marka nadar annaga ilaa 90 gurigeeda ku bedelanay ayadoo marwo ah oo inta noogu kirinaysay mar walba garab taagnay marka safarada dheer waa nala gashay hiili hoo gurigeeda naga maharay haddana habeenkii maalin nala wadaa inaan garoonka laqeeyo aan ka dhigno cagaar aan dayactirno roog u saaran dhalan isboortiga marka nadar waa mahadsan tahay usoo dhawow London mar labaad wanaagaada oo siyaasadda wadaa ka hadlay aniga marka waxaan soo istaagay isboortiga inaan ka hadlo midda labaad ayaga hadda nadar waa ayadii filmkeeda waa qoys sportis ayadan waa dheeri jirtay maxamed cabdulfariir waa dheeri jiray oo qaranka u soo saartay nadar marka meel walba waa laga amaanay ganacsadii waa amaantay ninkii dubay kusoo martay caafimaadka waa laga hadlay arrin waxaa martigacayaan inay nadar tahay qof sportiga u helan garab taagan habeen iyo maalin haddana howl nala wado allah ku guuleeyo marka adinkana waxaa ka codsanaya inaad garoonkaas nala dhistaan si ay dhalinyarada gobolka jooga iyo degmada iyo ay jiilka soo baxaya u helaan meel wanaagsan ay ku dhigaan maadaama anaga Yurub joogna ilmaha garoomada casriga ay haystaan marka aniga reer London mihi laakiin hadda London aan soo wareegay Sweden anaga intaas nolosha wada xiriireen waxaan waa kasoo dhaweeyay mar walba waa garab taaganahay marka waqti intaas aan soo gudbaa waxaa fadhiya rag kale oo dhalinyaro oo hawshii loo wado oo guddiga oo sportiga ka mid ah oo ilaa ay 5 qaaradan ka guddi aan nahay nadar way naga warqabtaa soo aadan aan ku jiro إكس جوجو داين كيشة جوجو مترك رجل أجران ودمر مريكن كيرد أجران مركب بيننا سودو ولا شيء نقدر سودو ولا لندن أنت أخيار ركام فريدة waxay ka marxaati kacaysaa qiimaha iyo sharaftaada sharaf weyn bay tahay inaan ka soo qayb galo reehiran in general idinkana waxaa leeyahay horta idinka laftiinu lafihiina u sacbiya Soomaaliya cabsi dilootay Soomaaliya aan qof walba kafeed uu fadhiyo baqayo Soomaaliya hoteeladii ku jira la waxa ka kor qaaday cabsidii oo khawaariij la dagaalamay oo maanta Soomaaliya meeshay maraysa gaarsiiyay oo macawisley reehiran Allah yasharfo walaashayna waxaan leeyahay soo dhawow aragaab waa noo abshir مسؤولينta iyo khiyaartada kala dhamaantiin waan salaamaya marka assalaamu alaykum warahmatullahi hadda waxaan soo dhaweynayaa Liban Nuur Idil Qayle marka horeysa waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan siyaasiyiinta wasiiradii hore waa ka dhaafa wasiirada xildhibaanada ambaasadarka safaaradda iyo dhammaan guddigii xafladda soo qabanqaabiyey waxaan u salaamayaa salaatu islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib war badan kama furno wixii war la sheegi lahaa waxaa sheegay walaalka cali dhuux wasiir cali dhuux waxaan soo dhaweynaynaa caawa gabadhan walaasheena maayer nadar tabaax maalin garaad walaal soo dhawow London waa kana bishii Soomaaliyeed beel ka maqan ma jirto ku soo dhawow magaaladaadii mar kale soo dhaweyn doonaa insha Allah taala waxa qabatayna waa laga marqaati kacay markaad ka shaqeynaysay magaalada Beledweyne iyo waxaad ka qabatay muxuu ahaa gurmadkii iyo waxaad ka qabatay sanfalkii dadkii naga horeeyay dhaqaatiirtu ku jiraan sheegay soo dhawow walaal salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh horada abiil laga qaatay marka after accept that appeal hadda waxaan soo dhaweynayaa Liban Abdurrahman dheer hadda soo dhaweynayaa horada waxaan mahadcelinayaa guddiga soo qabanqaabiyey dadkan quruxda badan leh oo runtii dad mar hore ugu dambeysaan ku arkeen aada ugu farxay waa mahadcelinayaa waxaa sharafi ah inaan ka qayb galo xafladan quruxda badan ee lagu soo weynayo mayor ama duqa magaalada
beledweyne Marwo Nadar aad u faraxsan cawalkan kasoo qaybqaad kusoo dhaweeya Nadar waxaa lagu tilmaamay inta taqaano inay tahay qof aqoon-yahan ah waxaa lagu tilmaamay inay tahay qof active ah anigana waxaan ku dareemay saddexaad Nadar waxaana reerhiiraan yaqaano dadka yaqaano saddexaad waxay tahay waxaad ka soo jeedaa famil lagu tilmaamo caqliga saa'idka ah iyo maskaxda oo lagu naadnayso weliba sagaala duq ma leh awoonna doqon ma leh marka aqoontaas ad leedahay activitkaad sameynaysa iyo taariikhdaas familkaad uga baxday haddii aad isku dartid waxaan rajaynayaa waxay helaysaa hiiraan magac kale iyo howlka yamaysa hiiraan waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay isu keenid dadka degan hiiraan oo miday u baahan tahay caqligii aan sheeginadu kugu jiraa waxaan rabaa markaa inaan arrin kuu sheego February 19 2016 waxaan ka balweyne ayadoo ay ku sugan yihiin 8 buug oo reeriyaan hadda kala duwan fikad ahaan ilaahay ama kala saarta waxaan ku guulaystay inaan isku keeno waxaan inaan isku keeno halkan ay yeeshaan adiga waxaan aaminsanahay inaad samayn kartid reeriyaan inaad isku keeni kartid caqli aad isticmaalo oo qori la iska dhaafo qori 34 sano waa shaqay way hadda waxaa loo baahan yahay waxay tahay caqliga loo baahan yahay caqligaasna dadka sheegaya waa ka dhalatay wayna ku sugayn magaalada Beledweyne idinkoo kala badan oo caqlina waxaan ka codsanayaa inaad midaysid reerhiiraan iyada oo la midaysan yahay oo hal la yahay oo reerhiiraan leeyahay in markaa ummadda kale loo tago haddii laakiin khilaaf uu jiro reerhiiraansaanay ahaanaya marka waa waajib ku saaran ilaahay ku saaray dadkaas ay ku saareen waxaan ku rajaynayaa khayr barwaaqo welcome to London soo dhaweynayaa xildhibaan Ibrahim Habeeb marka ugu horeysa waxaan aad ugu faraxsanahay markaan dadka halka fadhiya fiiriyey Soomaali oo dhan inay tahay oysan haba yaraatee reer hiiraan keliya aysan ahayn marka madaxda fadhisa halkan oo raggaan muddo dheer soo wada shaqeyna hadda safiirka wareega iyo muxuu ahayd ambaasadoorka iyo wasiirada hore waa la jeeday wasiirada iyo mataqaana xildhibaanada farada badan ee halka fadhiya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaantaas kadib waxaan rabaa inaan gabadha maayaradda ah ee magaalada Beledweyne runtii aad iyo aadaan ugu faraxsanahay inay timaado London oy kala kulanto soo dhoweynta Soomaalida London degan Nadar shaqooyinka ay qabanayso anaga hoos xodogaal aan u siinahay yacni cali jayte markuu ka soo bilaabay maxawsleyda way joogtay way la bilowday hooyada maxawsleyda ayadoo dhalinyaradaas haddaad og tihiin siday ugu dadaalaysay ama ay u qabaqaabinaysay ama ay u ororanaysay ma malay kartaa marka magacaas guud ahaan dib u xoreyntaas oo shabaab looga xoreeyey reer hiiraan qaybtii ugu weyn ay ka qaadatay marka laga reebo cali jayto asiga markaas xabadda hor wataan intaa kadib hadda maxay haddana qabatay ugaaskii markii la duubay oo aad aragteen muxuu ahaa Facebook iyo haddaad fiirisaan yacni markii la duubay meeshii ugu horreysay oo beelaha
uu ugaaska u yahay kuwa kulmay waxay ahayd coomaad haddana shirki coomaad ayadaa diyaarisay oo runtii waa lala shaqeeyey oo talooyin badan aan ka bixinay in 100 halaad iyo baarqabkeeda ugaaska lagu maamuuso marka koowaad waxay noqotay in dadkii isku masayraan ama mataqaanaa xurmo daraaddeed ay tahay inuu ugaaskii maray 12 beeloodow dadka meesha digay ka tirsanaa oo meeshuu tagaba 200 300 400 oo geel la sameeyo marka wuxuu maraa hadda 2,000 oo geel ayuu marayaa ugaaskii in lagu xurmeeyo iyo meeshuu maraa hawshaasay bilowday aas-aaskii ayay mataqaanaa qayb ka ahayd marka waxaan leenahay naadar ku soo dhawow magaca maayarnimada gabadh Soomaaliyeed oo ah maayar noqotay horta gobolka Hiiraan ka jira ma maraynaya yaa meel kale ka maqashay taasna waxaad ku garanaysaa gabdhaha gobolka Hiiraan inuu qiimo gaar ah uu u leeyahay oo ku fikirayo oo ka dhigay mataqaanaa maayarkii magaalada taasna aad iyo aad aan ugu hambalyaynayaa waana ku faraxsanahay oo waan ka shaqaynay waxaan rabaa inaan yidhaahdo Nadar Tabaax maalin garaad kusoo dhawow London Soomaaliya wada fadhisa halka caawa ma aha mataqaanaa reer Hiiraan oo keliya Soomaalida fadhisaa ku soo dhaweysay si farxad leh aan kugu soo dhaweynaynaa waxaan ku leeyahay guuleyso shaqada aad gobolka ka haysane ha noqoto mid waarta oo taariikh la qoro ka harto bismillaahi raxmaani raxiim waxaa sharaf ii caawa inaan wada joogno London ma dhihi karo walaashay ma dhihi karo warantay maxaa la yidhaahdaa Nadar waan runtii sharaf ii tahay inaan mataqaanaa xafladdan quruxda badan ay caawada aan wada fadhino waxaan u mahad celinayaa walaalaha soo qabaqaabiya xafladdan quruxda badan ku casuumay meeradeena London abina Beledweyne oo runtii ah intaan inka badan ay mudan tahay waxaan leenahay soo dhawow waxaan kaloo u mahad celinayaa odayaasha xildhibaanada wasiirada xafladdan quruxda badan ka hadlay anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda iyo magaca safaaradda Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaasheen ku soo dhawaato London iyo UK waxaan rabaa inaysan ku ekaan intaan wanaageeda iyo waxay qabatay ee laga sheekeeyey oo runtii dhinac kasta laga hadlay caafimaadka laga hadlay waxqabadkeeda Beledweyne laga hadlay inaysan intaan ku ekaan la sii wado walaalkay Cabdirashiid ka dhawaajiyey in xoogga la saaro in lala kulansiiyo mayorka London Sadiiqan oo runtii ah nin islaam ah muslima Soomaali badan u codaysay marka waxaa la rabaa dadkiina maxaa la yidhaahdaa reer Beledweyne ama Soomaalida joogta waddanka inay hokacday gabadhaas mataqaana u raadiso annagu safaaradaan nahay seertan waxyaabaha qaarkood ma geli karno siyaasadda waddanka laakiin jaaliyadda degan ee reer Hiiraan runtii inay u kacaan gabadhaas u raadiyaan sida ninkaas odaga ay kula kulmi lahayd mayorka wax badan ay ka heli doonto haddii ilaaha yidhahdo wada kulmaan waxaan leeyahay mar labaad waxaan soo dhaweynayaa oo ku soo dhaweynaya hortiina caawa keenaya waragtay Nadar inay laba kalma ka tiraahdo haddii ilaaha yidhahdo waa mahadsan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. xildhibaanada wasiirada safaaradda Soomaaliya ganacsatada dhalinyarada isboortiska iyo dhalinyarada kale jaaliyadaha gabdhaha dhammaantiin waxaan dileeyahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan caawa ku faraxsanahay horta in kulankan Soomaaliya oo wada joogto oo dhammaan 5 Soomaaliyeed ay wada joogto waa farxad iyo gaar ah mar haddii isboortiskii laga hadlay caafimaadkii laga hadlay siyaasaddii laga hadlay
dhaqankii iyo ugaasduubkii laga hadlay oo laga markhaati kaca inaan soo dhaweyntii ugaaska kulankiisii ugu horreeyay oo lagu qabto Coomaan goboldhigeed aan ahay. waxaan is leeyahay waxaa dhiman Abuukar Qaadiid oo loo yimaado Beledweyne aan wada shaqeeyo in maaragtay dhalinyaradu ay ka nabad guurto inay jaabka cunaan. runtii waxaa aad ugu faraxsanahay in dhalinyarada sportska oo halkan ku kulansan wax badan aan kala shaqeeyay sports siday usoo sheegeen waqti dheer. haddana weli diyaar u ahay inaan kala shaqeeyo. waxaan kaloo diyaar u ahay inaan caafimaadka ka shaqeeyo, siyaasadda, waxaan dhahay dhammaan dhaqanka kulli inaan wax kasta ka shaqeeyo haddii ilaahay ii daayo caafimaadna aan helo inaan dhammaan ka wada shaqeeyo. waxaan ku faraxsanahay caawa inaan London joogo, dad boqolkiiba 80 yaqaanana halkan ay fadhiyaan oo aan is leeyahay way ku wada yaqaanaan dadka halkan. waxaan is leeyahay caawa waxaad joogtaa Beledweyne, meel kale ma joogtid. waa runtiis walaalkay wasiirka anoo ka maqan gurigeygana alaaba ku dejiyey waa qaybiyey, soo joogana sidoo kale statekana waa ka wada shaqeynay. waxaana keenayso kalsooni qof gurigeedii ka maqan waardiyaheedii iyo gurigii keliya joogo in inta la furto alaab lagu dejiyo. waxaad dareemi kartiin in kalsooni fara badan iyo ammaan fara badan meeshaas ay ka jiraan. waxaa meesha soo istaagay nin ganacsado ah oo reer Beledweyne ah, Dubayna degan. wuxuu ku jiraa dadka magaalada Beledweyne ka sameeya horumar. magaalada Beledweyne biyaha nadiifka ah oo laga cabo wuxuu ka keenay ceelgaal. Beledweyne iyo ceelgaal intay isku jiraan waa dareemi kartaan. wuxuu sameeyey warshadii lagu nadiifinayay biyaha, wuxuu sameeyey maqaayado waaweyn. wuxuu diyaar u yahay inuu horumar badan ka fuliyo isagoo magaalada degan kana shaqeysto adduunkiisa kale oo ay Londonba ka mid tahay in magaaladiisii uu ka yimid horumariyo. caawa waxaan ku faraxsanahay inuu joogo. sababta aan asaga usoo qaatayna waxay tahay adigoo London joogtid inaad horumar Beledweyne ka samayso ayaa waxay ii tahay aniga farxad. waxaan u baahanahay talentiina, waxaan u baahanahay aqligiina, waxaan u baahanahay aqoontiina, waxaan u baahanahay in horumar laga sameeyo. hadday jidad noqoto, hadday maaragtay caafimaad noqoto, hadday noqoto iskuulaad, qof walba guriga isagana uu dhisan karaa, waxna uu sadaqaysan karaa. mida kale boqolkiiba 80 waxyaabaha la dhiibo oo loo dhiibo in ama emergency-ga lagu qabto ama fatahaad ama waxyaabo lamid ah, waxaan u malaysaa meelihii loogu talagalay inaysan gaarin. waxaan aaminsanahay maysan gelin gacanta gabdhaha, gacanta raggay gashaa. ragguna waxyaabo badan marka guddiyada dadka lacagaha soo dhiibayo horta guddiyada waa inay ku jiraan. sidaan is leeyahay gabdho waa inay ku jiraan, sababtoo gabadhu aniga gurigeyga sidaan u qurxinaha waxaan jeclahay xafiiskaygana inaan u qurxiyo. sababtoo ah gurigeyga iyo xafiiskayga waa suuka mid. 3 bilood ka hor waxaa laga qaaday xilka, 3 bilood kadibna waxaa lagu soo celiyey isla xilkii. waxaana ka dareemi kartaa in ammaano ay ahayd xafiiska dowladda hoose magaalada Beledweyne markii hore, mar labaadna saas lagu soo celiyey. inta halkan fadhiso dhammaantood waxay ka wada dhawaajiyeen inaan wanaagsanahay, fiicanahay, laakiin weli waxaad qabatay isma lihid. magaaladii Beledweyne oo aan wada dhiraysanayn, fatahaadda dhinac laga marin, jidad fara badan oo qurux badan aan loo samayn, xaruntii agoon maaragtay xarumo badan oo agoon maaragtay aan laga samayn. waxaana rabaa inaan ku daro xarunka, sababtoo ah hadda maalmahan meelaha joogay gabdho badan oo asxaabna waxaan la tegayay maamooyinka ay haayaan. sidaas daraaddeed waxaan is leeyahay maamooyin aan owlaad lahayn ama waayeelo ah ama aan waxba haysanin waxay u baahan yihiin kaarka dadka inta jooga ay u baahan yihiin. sababtoo ah hooyo 60 jir ah, 70 jir ah, 80 jir ah daaway u baahan tahay, waxay u baahan tahay raashin, waxay u baahan tahay farxad iyo in lala sheekaysto. hooyooyin badanaa guryaha ku jiro. waxaan ka codsanaa horta waxaa laga yaabaa dad ka shaqeeyo ama leh kabaryaal kale inay fadhiyaan halkan in laga suurtageliyo. anigana waxaan ballan qaadaa dhulkii lagu dhisi lahaay ama lagu daryeeli lahaay dalkaas inaan ka keeno magaalada Beledweyne.
aad waxaan ugu faraxsanahay ambaasadarka aan habriyartiis ahay marna ambaasadarkeyga maanta magaalada aan jooga ah inuu caawa kasoo qayb galay iguna casuumay magaalada London la-aantiisna way imaadeen marka dhawaatii waa mahadsantihiin waxaan isleeyahay intan waa inaad taqaanid inta kaleetana fariin iga gaarsiiya dalkii horumar u baahan yahay lacag inay meel ku jirto waxaa ka qurux badan dalkii dadkii in lagu bixiyo sababtoo ah wax la maal gasto dadka ugu muhiimsan iyo dalkaaga inaan dhar qurux badan wadano suud soo xirano duruuc iyo garbasaaro qaaliya xirano habeen dambana insha allah gabdhaha intaan iyo inka badan dhihi doono insha allah waxaa ka qurux badan inaan wax isku darsano ceel qodno xarun umoon sameyno xarun kaar sameyno maaragtay qaadiid la shaqeyno anjaadkiis ka suulan lacagteena faraha badanna qaato mana war badni laakiin waa shaqo badanahay markii dadka dhan shaqada kasoo sheekeeya taas uma hadal badni hadalku waa laga fiican yahay haddii aan dad ka tegay ha laga raali ahaado haddii kale waxaan jeclahay intaas inaan kusoo gabagabeeyo kun jeer waa mahadsantihiin walaalahay insaan lay jecel yahay uma haysan asalaamu calaykum waraxmatullahi waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad na soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambaleel ka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxaa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan